بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada saxtiisa oo uga barateen inay soo gudbiso casharada la xiriira computerka iyo mobilka waxaynu koorsadii ka horeysay kaga hadalnay sida WordPress loogu shubo computerka casharkan waxaynu kaga hadlaynaa sida template qurux badan aad ugu shuban kartid WordPress kaaga tusaalahan casharkii ka horeeyay waxay inoo mareysay في website hadii aynu niraahno aynu eegno template ku hore u lahaa website keenu wada aragtaan waa sidan wax isbedela iyo wax quruxa oo haba yaraatee leeyahay midna ma jirto waxaan rabnaa hadaba si aynu u soo dejisano template qurux badan waxaan tagaynaa browserka markaan tagno waxaanu kala ku qori doonaa Google kadibna waxaan ku qori doonaa free responsive template WordPress kadibna waxaan leeyahay enter qaybo fara badan ayaa soo baxay qaybtan kore baan iskaga dhufanayaa template aad qurux badan oo waxyaabo kala duwan leh baa halkan kaaga muuqda kii aad ka heshid waad ku dhufanaysaa salaanaanu kanoo kale ku dhufanaya anigoo fiirinaya bal featureskiisa iyo waxyaaluhu gaarka ah ee uu leeyahay shaqadiisuna way qanacsay iskana waxaan leeyahay download waa inoo soo degay kadibna waxaan ku noqonayaa dashboardkii waxaan tegayaa appearance kadibna waxaan ka dooranayaa add new waxaan soo gelinayaa template-kii aan hadda soo dejistay update time baan leeyahay kadibna choose file waxaan raadinayaa kii u dambeeyay aan hadda soo dejistay waa kana kadibna waxaan leeyahay open kadibna waxaan leeyahay install now saad u jeedaan hadda waa inoo dhammaystiray kadibna waxaan leeyahay active now si uu ugu bedelo kii hore yes waynu si aynu aragno hadaba in uu saarmay kale waxaan leeyahay saxtiijka qaybta visit site kadibna waxaan leeyahay open new tab igu fur kii hore saas waa haddana soo noqon doonaa waxaynu aragnaa inaynu design cusub iyo nashqad cusub aynu la soo degnay waxaynu casharka waxay kaga hadlaynaa sida loo qurxiyo design kaas aynu soo dejisanay casharka xiga la soco oo aynu kaga hadli doono sida loo qurxiyo ama front page-ka uu leeyahay website-ku